I would like to see the new mayor do well. waxaan jeclaan lahaa inaan arko duqa cusub ee New York oo si wanaagsan wax ku wada ayuu hadalkiisa ku bilaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo markii ugu horeysay xalay la weydiiyay sida uu u arko duqa la doortay ee magaalada New York Zohran Mamdani oo Trump horay ugu yeeray shuuci xaq jira oo aan mudnayn in la doorto. Trump oo qiil ka dhiganaya jacaylkiisa magaalada New York ayaa yiri waan kaalmayn doonaa isaga sababtoo ah New York ayaan jeclahay. wuxuu hadalkiisa raaciyay inuu jeclaan lahaa in Mamdani u yimaado oo ay kulmaan. hadalka Trump waxa uu bilow u ahaa hambalyo iyo taageero uu Zohran Mamdani ka helayo dadkii saameynta lahaa ee sida adag uga soo horjeensaday intii ololihiisa doorashadu socday kuwa oo uu safka hore uga jiro ninka haatan la sheego inuu ugu maalqabeynsan yahay magaalada New York ee Bill Ackman la yiraahdo kaas oo hambalyadiisa Zohran kadib tilmaamay inuu garab istaagi doono duqa cusub. mid naadir ah ayaa ahayd in 34 jirkan muslimka ahi guul taariikhi ah ka helay loolanka doorashada magaaladan iyadoo guud ahaan maalqabeennada bilyamaadka haysta ay malaayiin dollar ku bixiyeen inuusan soo bixin. bilyaneerada lacagaha bixiyay garab istaagay Andrew Cuomo musharaxii xisbi la'aanta tartamay ee laga adkaaday waxaa ka mid ahaa Bill Ackman oo la wariyay inuu bixiyay 1.75 milyan oo dollar. Tish family oo Cuomo siiyay 1.2 milyan oo dollar halka Michael Bloomberg iyo asaasaha Airbnb ee Joseph Gabia ay bixiyeen lacag lagu sheegay 11 milyan oo dollar si aan Mamdani u soo bixin. Masadicin oo guul taariikhi ah aan filashada ku jirin oo tustay isbedelka maxalliga ah ee ku socda siyaasadda Mareykanka ayuu ku soo baxay Zohran Mamdani. xogaha ayaa warinaya in rayidka Mareykanku ay ka daaleen siyaasadda waddankan ee maslaxadda Mareykanka ka horreysay tan Israel. faranqeeyaasha waddankanina waxa ay qayb ahaan tilmaameen in tan laf ahaanteedu ay sabab u ahayd guusha Zohran Mamdani oo waxa ay tilmaameen inuu ku guuleystay doodiisii koowaad ee markii loolanka duqa magaaladu ka socday gudaha xisbiga dimuqraadiga oo uu Zohran diiday tegista Israel haddii la doorto. taa beddelkeedana uu tilmaamay inuusan waxba ka horreysiin doonin danaha New York. First visit, I would visit the Holy Land. I would go to Israel. Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. doorashadiisu waxay dimuqraadiga uga dhignayd guusha ugu weyn liminta ay ka tirsadeen xisbiga talada haya talaadadii oo ay la gaareen wax loogu yeeray dharbaaxada buluuga ah taa oo timid kadib markii jamhuuriga looga adkaaday kuraas isugu jirta gudoomiyeyaal gobol duq magaaleedyo gudoono maxkamadeed ilaa senataro. taageerayaasha xisbiga jamhuurigu waxa ay docdooda ku tilmaamayaan doorashada Mamdani weero fasiraadoodu tahay duulaanka soo galootiga kacdoonka islaamka xaq jirka ah iyo dhimashada New York. An immigrant invasion that has now given us a radical Muslim running the greatest city in the world. waxay soo muuqataa inay doodaha si cad uga hiiliyeen rayidka New York oo mustaqbal weyn ka dhaxarka hogaaminta Mamdani. dhinaca kale doorashadan waxaa dunida oo dhammi ka baratay in qorshayaasha waxqabad ee cadcad waaqica ku dhisan ee dhabaha hirgelintooda loo maraya cad yahay ay ka xoog badan yihiin afkaaraha siyaasiga ah taasoo si cad u muujinaysa inaan la hor istaagi karin doonista bulsho ee maslaxadda ku dhisan. ugu dambeyn Trump ilaa maalqabeennadiisu waxay haatan u muuqdaan inay ku khasban yihiin garab istaagga muslimkii ugu horreeyay ee hogaaminaya magaalada ugu baaxadda iyo bulshada badan Mareykanka xudunta dhaqaalaha iyo xarunta maalqabeennada dalkaas.